Assalaamu calaykum. Dagaalkii saddexda boqor waa mawduuca aynu maanta ka hadlayno. Magacaygu waa Mubaarak Maxamuud Saleeban iyo janalkii Tayadoon Media. Fadlan haddaad nagu cusub tahay, nagu soo bir sidoo kalena subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada dambe aanu soo gelin doono, annagana ay dhiirigelin noogu noqoto. Maanta waxaanu ka hadlaynaa dagaalkii la magac baxay dagaalkii saddexda boqor. laga soo bilaabo dhicitaankii Andalus sanadkii 1492 miilaadiga, wadamada Maghrib, Algeria, Tunisia iyo Masar waxay bartilmaameed u noqdeen weeraradii Isbaanishka iyo Boortaqiiska. Inta badanna waxaa ka hortaagnayd boqortooyadii Cusmaaniyiinta laga soo bilaabo xilligii Suldaan Saliimkii koowaad iyo wiilkiisii Sulaymaan al-Qaanuuni. Haddaba dagaalkii Waadi al-Maqsin ama dagaalkii saddexda boqor kadib geeridii Suldaan Abu Maxamed al-Qaalib Billaah ee sanadkii 1574 kaasoo xukumayay dowladdii Sacdiya ee Morocco, waxaa xilka ka dhaxlay wiilkiisii Mawlaa Maxamed kaasoo la baxay magaca Mutawakkil cala Allah. Al-Mutawakkil markuu la wareegay xukunkii dowladda Sacdiya ee Morocco wuxuu qaatay istiraatiijiyad ah inuu xidhiidhisu soo dhowaansho la yeesho dowladdii Masiixiyiinta ee Isbaanishka, Boortaqiiska iyo Ingiriiska si looga hortago saamaynta boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee Morocco. Sidoo kalena Al-Mutawakkil wuxuu noqday suldaan xun oo dadkii oo dhammi naceen, dhiig badanna daadiyey. dadkuu laayeyna waxaa ka mid ahaa 2 ka mida wiilashii ay walaala ahaayeen. sidoo kalena mid saddexaadna xabsiga ayuu ugu jiray. wuxuu kaloo laayay dad kale oo badan oo aan tiro lahayn. dhinaca kale, Al-Mutawakkil wuxuu rumaysnaa in iskaashi lala yeesho cadowga Isbaanishka iyo Boortaqiiska ay tahay lama huraan kadib markii ay qabsadeen in badan oo ka mid a xeebaha Morocco, taasoo reer Morocco ay u arkayeen inuu ninkani samaynayo khiyaamo qaran. haddaba dhacdooyinkan isdaba joogga ah waxay ka xanaajiyeen Al-Mutawakkil adeeradiis oo 3 ahaa, waxaana la kala odhan jiray Cabdu al-Maalik iyo Axmed al-Mansuur iyo Cabdulmu'min, taasoo keentay inay caawimaad ka raadsadaan dowladdii Cusmaaniyiinta iyagoo ka codsaday Suldaan Muraadkii saddexaad inuu ka caawiyo sidii xukunka looga tuuri lahaa Al-Mutawakkil. iskaashiga uu la yeeshay Isbaanishka iyo Boortaqiiska darteed. sidaas darteed Suldaan Muraadkii saddexaad wuxuu warqad u qoray barasaabkii Cusmaaniyiinta ee Algeria u fadhiyey, wuxuuna amar ku siiyey inuu u diro Cabdu al-Maalik 5,000 oo askari oo Turki ah si xukunka looga tuuro Al-Mutawakkil. haddaba Cabdulmaalik iyo walaalkii Axmed al-Mansuur iyo walaalkiisa kale Cabdu al-Mu'min iyo weliba guddoomiyihii Algeria waxay u dhaqaaqeen dhanka Morocco. sidoo kale qabiilooyinkii iyo dadkii taageersanaa waxay diyaar u ahaayeen inay dagaalka la galaan. markay xoogagani ku dhowaadeen inay soo galaan magaalada Fes, abaanduulihii ciidanka Andalusiya ee ka tirsanaa ciidanka Al-Mutawakkil wuxuu ku biiray ciidamadii Cabdumaalik iyo Cusmaaniyiinta. haddaba maxay ahaayeen ciidanka Andalusiya? sidaynu taariikhihii hore kaga soo warrannay, wakhtigii Andalus ay burburtay ee boqortooyadii u dambeeyey qarnaada la qabsaday, Andalus dadkeedii u badnaa iyo ciidamadeedii iyo wixii badi waxay u soo qaxeen dalka Morocco ayay degeen, halka qaybaha qaarna ay degeen Turkiga. ciidanka Andalusiyana waxay ka mid ahaayeen ciidanka ugu muhiimsan uguna awoodda badan tir ahaan iyo tay ahaanba ciidamadii dowladdii Sacdiya ee Morocco. si kastaba ha noqotee, ciidanka Andalusiya waxay nacayb iyo xiqdi u hayeen Suldaan Qaalib iyo wiilkiisa Al-Mutawakkil sababtoo ah isbahaysigoodii iyo wada shaqayntii ay la lahaayeen cadowgoodii soo jireenka ahaa ee Isbaanishka iyo Boortaqiiska, kuwaasoo ka soo eriyey dadkii Andalus dhulkoodii, sidoo kalena xasuuq baan u geystay. haddaba Cabdu al-Maalik iyo ciidankiisii waxay ku guulaysteen dagaal ka dhacay meel u dhow magaalada Fes. wakhtigaas Al-Mutawakkil wuxuu xaqiiqsaday in laga adkaaday, sidaas daraaddeed wuu cararay. haddaba Suldaan Cabdumaalik wuxuu qabsaday magaalada Fes sanadkii 1576 miilaadiga, wuxuuna u magacaabay walaalkiis Axmed. kadibna wuxuu qabsaday magaalada Maraakesh wuxuuna ka dhigtay caasimad. dhinaca kale, Al-Mutawakkil wuxuu u cararay buuraha Al-Zaws. ciidamadii adeerkiisna way eryadeen. haddana wuu ka cararay wuxuu aaday Sebta,
kadibna wuxuu galay magaalada Tanja isagoo caawimad ka raadinaya boqorkii Boortaqiiska ee Sebastian lagu magacaabi jiray kadib markii boqorkii Isbaanishku diiday inuu wax gargaara u fidiyo. haddaba Al-Mutawakkil wuxuu u ballan qaaday Sebastian haddii uu xukunkiisii dib ugu celiyo inuu siin doono dhammaan xeebaha Morocco. haddaba magaalada Azila weli waxay ku hoos jirtay xukunka wiilka uu sodoga u yahay Al-Mutawakkil kaasoo la odhan jiray Cabdulkariim binu Tawda, halka magaalada Tanja ay ku jirtay gacanta Boortaqiiska muddo nus qarni ku dhow. dhinaca isbahaysigii cadowga, King Sebastian wuxuu soo abaabulay duulaan saleebi ah oo ka kooban dhowr waddan oo reer Yuruba. waddamadii ka qayb qaatayna waxaa ka mid ahaa Isbayn, Talyaaniga, Jarmalka iyo Boortaqiiska. wuxuuna watay ciidan lagu qiyaasay ilaa 80,000 oo dagaalyahan iyo 40 madfac iyo sidoo kale 1,000 doonyood. dhinaca socdaalkii labada ciidan ee dooxada Makhzaan ama Al-Qasrul Kabiir, maraakiibtii Saleebiyiintu waxay ka shiraacdeen dekedda Lisbon iyagoo u jihaystay dhanka waqooyiga Morocco 24 Juun 1578 waxayna joogeen Locus dhowr maalmood. kadibna waxay aadeen dhanka magaalada Qaadis oo waxay joogeen 7 dhan halkaasna. kadibna waxay ku xidheen xeebta Tanja halkaas oo Sebastian uu kula kulmay saaxiibkiis Al-Mutawakkil. kadibna maraakiibtii waxay sii wateen safarkoodii Azila, kadibna duleedka magaalada Azila ayay degeen. dhinaca kale, Suldaan Cabdu al-Maalik wuxuu degay isaga iyo ciidamadiisii suuq al-Khamiis oo 6 mayl koonfur ka xigta dooxada Al-Qasrul Kabiir. haddaba ciidanka Morocco qiyaas ahaan wuxuu gaadhayay ilaa 40,000 oo dagaalyahan oo ka kooban ciidamo laga soo ururiyey gobolka Fes, Maraakish iyo ciidamadii Andalusiyaanka ahaa iyo qabiilooyinkii Carabta ahaa. marka lagu daro taageerada Cusmaaniyiinta, waxay soo direen khuburo military iyo ciidamadii Cusmaaniyiinta ee Algeria iyo sidoo kale 34 madfac oo waaweyn. inkastoo tirada madaafiicda ee Cusmaaniyiintu ay ahaayeen 34 madfac marka la barbar dhigo dhigooda Boortaqiiska oo iyagu 40 madfac, hase yeeshee khubaradii militariga ee Cusmaaniyiintu waxay awood u yeesheen inay sameeyaan qaab ay ku burburiyaan madaafiicdan cadowga, wayna ku guulaysteen. ugu dambayna labadii ciidan waxay ku kulmeen dooxada Makhzin ee koonfurta magaalada Qasru al-Kabiir ama Kutama Palace oo ku taalla waqooyiga Morocco 4 bishii August 1578 miilaadiga. haddaba Suldaan Cabdulmaalik subaxaasna wuxuu amar ku siiyey qayb ka mid a ciidamadiisii inay dumiyaan buundada Waadi al-Makhzin si Boortaqiisku aanu u helin waddo uu ku laabto. dhinaca kale, ninka lagu magacaabo Al-Zalwi kitaabkiisa la magabaxay baadhitaanka Maqrib al-Aqsa Nayus wuxuu yidhi markii ay kulmeen labada ciidan dagaalkiina uu bilowday, hawadii waxaa madoobeeyey siigada fardaha iyo qiiqa madaafiicda. Suldaan Cabdulmaaligna wuxuu dhintay bilowgii dagaalka, waayo markiisii hore ayuu xanuunsanayay oo waxaa lagu siday bareelo. si kastaba ha noqotee, Mawlaa Axmed al-Mansuur oo ah walaalka suldaanka dhintay sidoo kalena ahaa guddoomiyaha gobolka Fes, markii uu dul istaagay geerida walaalkii Suldaan Cabdulmaalik wuxuu la wareegay hoggaankii dagaalka. dagaalkuna wuu sii xoogaystay, ilaahayna wuxuu guusha siiyey ciidankii muslimiinta ahaa. isbahaysigii Saleebiyiinta ee Boortaqiisku hogaaminayeyna waxaa la dhadhansiiyey guuldarro aad u qadhaadh. dhinaca kale, King Sebastian oo isagu dagaalkan hogaaminayay Saleebiga oo ahaa boqorkii Boortaqiiska waxaa lagu dilay bartamaha dagaalka. sidoo kalena Al-Mutawakkil oo ahaa suldaankii xilka laga tuuray, isagu isbahaysiga soo abaabulay, wuxuu isku dayay inuu baxsado, laakiin wuxuu ku haftay Waadi al-Makhzin ama webiga al-Makhzin. Suldaan Cabdulmaalik laftarkiisuna wuxuu dhintay isla maalintaas. sidaas daraaddeed dagaalkan waxaa loogu magac daray dagaalkii 3 boqor sababtan awgeed.
dagaalkuna wuxuu socday 6 saacadood intii lagu guda jiray. Boortaqiiska iyo xulufadiisii oo dhan waa la jebiyey. keliya tiro aad u yar ayaa ciidamadii Salabiyiinta baxsaday. dagaalkaasina wuxuu soo afjaray saamayntii dowladdii Boortaqiiska ee awoodda badnayd. sidoo kalena dagaalkan waxay ku weyday madaxbannaanideedii kadib markii Isbaanishku uu qabsaday dowladdii Boortaqiiska kadib dhimashadii King Sebastian. Boortaqiisku wuxuu ku burburay militari ahaan, siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba kadib dhimashadii King Sebastian. markaa dagaalkii 3 boqor halkan maanta inoogu joogo. fadlan haddaad muuqaalka ka heshay like saar si uu dad badan u gaadho. sidoo kalena haddaad nagu cusub tahay subscribe saar. wassalaamu calaykum.